wabarakaatu. Halkan waa Daalaan Media. Daawadayaal kula wanaagsan. Xubinteena waxaynu ku soo qaadanaynaa falanqeyn ku hadal fursadaha musharaxiinta ee adeegsiga warbaahinta qaranka iyo la taageerayaasha musharaxiinta ee baraha bulshada. Inkastoo ay dowladda federaalka hore u shaacisay inay warbaahinta qaranka tahay mid u furan mucaaradka, haddana weli lagama dhabeyn arrintaasi. Waxaa la qeexi karaa warbaahinta qaranka oo ahayd in loo wada sinaado ayaa waxaan marnaba laga baahinin wararka musharaxiinta gaar ahaan kuwa mucaaradka iska badaa in dood wadaag dhex dhigo madaxda dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta mucaaradka, ama in si caadi ah looga baahiyo aragtida siyaasiyiinta mucaaradka warbaahinta ay ka soo saaraan shirarkooda amaba qolalahooda doorashada ee madaxtinimada. Guud ahaan siyaasiyiintan xilalka ka haynin golayaasha dowladda waxaa ku adag inay galaangal u yeeshaan in warbaahinta qaranka laga baahiyo aragtidooda shakhsi ee siyaasadeed, bulsho iyo talooyinka qaran ee ahayaan. Xildhibaanayaasha ayaa rumaysan in dowladda isaga kala duway talada dalka ay ka wada mideysanaayeen in la xakameeyo galaangalka mucaaradka warbaahinta qaranka, taasi oo meel ka dhac ku ah xorriyatul qowlka. Waana xaqiiqo in madaxweyne kasta ee talada haya uu isaga isku koobo warbaahinta qaranka ee la wada lahaa iyo inuu si toos ah u adeegsado ama ugu adeegsado aragtidiisa khaaska ah shirarka taageerada lagu raadinayo isaga amaba barnaamijkiisa ololaha doorashada. Murashaxiinta dowladda waxaa warbaahin u irmaan u ah oo ay adeegsadaan qaybaha warbaahinta qaranka, gaar ahaan reediyo Muqdisho iyo telefishinka qaranka iyo baraha bulshada ay warbaahinta qaranka ay leedahay. Murashaxiinta mucaaradka ee u tartami doona doorasho madaxtinimada dalka waxay rumaysan yihiin inaysan dowladda federaalka iyaga ogolaanin fursad ay warbaahinta qaranka ay kala hadli karaan ummadda Soomaaliyeed si ay ugu bandhigaan bareerahooda ku aadan xilalka kala guurka, xal u helidda deganaanshaha dalka, ololaha doorashada iyo istiraatiijiyada doorashada kadib. Murashaxiinta madaxtinimada waxay fursado u furan u arkaan warbaahinada madax bannaan, gaar ahaan idaacadaha FM-ta iyo telefishinada. Waxa ay warbaahinadaas u adeegsadaan inay ummadda u gudbiyaan aragtidooda ku aadan xaaladda guud ee dalka, khilaafka siyaasadeed taagan, muujinta qaladaadka ay u arkaan turxaan bixinta iyo maareynta qodobada asaasiga xilliga kala guurka iyo habraaca doorashada. Sidoo kale, madaxda dowlad goboleedyada oo iyaguna qayb ka ah saamileyda siyaasadda dalka waxay ka maarmaan warbaahinta dowladda dhexe, maadaama ay iyagu leeyihiin warbaahinno dowlad goboleed oo iyagu gaara sida telefishinno iyo baro bulsho oo maamul kasta u qaas ah. Marka aynu eegno dhammaan musharaxiinta u taagan madaxtinimada, waxaa la arkayaa in dhowr ka mid ah ay leeyihiin ama saamileey ka yihiin idaacado ama warbaahinno, halka kuwa kalena ay maalgasho ku sameynayaan taageerayaashooda baraha bulshada si ay u burburiyaan amaba ay u baahiyaan ololahooda doorashada. Marka la milicsado guud ahaan warbaahinada, gaar ahaan baraha bulshada iyo taageerayaasha dowladda federaalka iyo kuwa midowga musharaxiinta, waxay u muuqdaan inay yihiin ubuucda laga shadayo ololka siyaasadeed ee haatan taagan. Marka la eego murashaxiinta madaxtinimada u taagan ee dowladda federaalka iyo kuwa midowga musharaxiinta, waxaa la arkayaa in khilaafka ugu weyn ee ka taagan haatan uu yahay nidaamka loo maamulay doorashooyinka, iyadoo guddiyada la magacaabana ay gaashaan ku dhufteen midowga musharaxiinta. Maalmihii ugu dambeeyey waxaa aad dardar u geliyay taageerayaasha mid ka mid ah musharaxiinta doorashada kadib markii ay maalgelin heleen loona fududay helitaanka imkaaniyaadka ku aadan adeegsiga baraha bulshada. Wararada ayaa rumaysan in tirada taageerayaasha baraha bulshada u oleynaya musharaxiinta xilka madaxweyne ay maalin ka dambaysa ay sii kordhayaan, haba ugu horeeyaan kuwa taageersan madaxweyne Farmaajo oo isaga hami ku haya in marka lasoo doorto. Haddaba waa maxay shaqada taageerayaasha baraha bulshada iyo musharaxiintaasi? In la taageero musharax waa wax iska dabiici ah, balse taageeradaas ma tahay mid uu qofka iskiisa u go'aansaday, bise waa mid qayb ka ah taageerid lagu bedelayo maalgelinta ololaha musharaxiinta ee loolanka ugu jira doorashada la filayo inay dalka dhacdo bilowga sanadka soo socda ee 2021. Haddaynu eegno fursadaha ololaha musharaxiinta madaxweynaha, waxaa musharax kasta ku kasban karaa taageerayaal fara badan oo si toosa iyo si dadban u taageersan, iyadoo taageerayaasha baraha bulshada muuqdaan inay dardar geliyeen oo leenta murashax kasta oo madaxweyne si ay dadweynaha ugu iibiyaan inay codka siiyaan, inkastoo aysan dadweynaha iyaga si toosa wax u soo dirinin, maadaama doorashada haatan soo socota ay tahay doorasho dadban. Sidoo kale, markaynu eegno dhaqdhaqaaqyada socda ee ololaha doorashada musharaxiinta, waxaa laga dareemayaa magaalada Muqdisho iyo degmooyin kale, iyadoo taageerayaashu isugu jiraan kuwa qaybka ololaha doorashada iyo kuwa loo fududeeyay maalgelinta tashiilaadka adeega internetka si ay baraha bulshada ugu soo bandhigaan ama ugu sheergareeyaan taageerada musharaxa ay taabacsan yihiin.
taageerayaal badan ayaana arkayaa iyagoo ku libisan funaanado koofiyado iyo istikaro kale oo musharax qaasa lagu taageerayo laguna qiimeynaya inuu u qalmo musharax madaxweyne si uu u noqdo madaxweynaha cusub ee ama walay dooran ama dadku qaadiyeen